waxaanu maanta u baxaynaa safar aan ku tagayno dalka Imaaraadka Carabta aniga iyo wafdi la socda oo kamid yahay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda Maxamed Xasan safarka ujeedadiisu waxa weeye waxaanu ka qayb galaynaa shir ballaaran oo sanadkii mar la qabto oo ay isku yimaadaan wasiirada xagga dhaqaalaha u qaabilsan dalalka Carabta iyo qaaradda Afrika qaar kamid ah intaba waxaanu ka dhacayaa magaalada Dubai dalka Imaaraadka Carabta waxaan rajaynaynaa in shirkaasi ka qaybgalkiisu uu noo fududeeyo inaanu arrimaha xagga horumarka dhaqaalaha ee dalka ganacsiga iyo maalgashigaba inaanu wufuudda ka kala socota dalalka kale iyo khubarada kale ka soo qaybgalaysa shirweynaha aanu kala hadalno oo aanu horumarkiisa iyo ballaarintiisaba aanu kala xaajoonno shirkani waa shir heer wasiir oo magaciisa la yiraahdo shirka maalgashiga dalka Imaaraadka Carabta wasaaraddiisa ganacsiga iyo dhaqaaluhu ay sanadkiiba martigeliso farxadna waxa noo ah in Somaliland ay ka qayb galayso shirka waxaan filaynaa in fursadaasi ay noo suura gelin doonto inaanu qadiyada xagga dhaqaalaha iyo maalgashiga iyo horumarka kale dalka ka socda iyo kuwaan taageerada uga baahanayba inaanu halka aanu kala xaajoonno wufuudda iyo dadka faraha badan leh ee ka soo qayb galaya shirka